bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka qaranka hab TV qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya ciidamo gadoodsan oo ka tirsan militariga Soomaaliya oo maanta xiray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maanta meel mariyay mooshin dood badan dhaliyay madaxweynaha caafimaadkiisa la shaki geliyay Mareykanka Donald Trump oo gaf u geystay Soomaaliya madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo ka biyadiiday baaq culus oo ay u soo jeediyeen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka Turkiga oo hurdo la'aan dhigay Imaaraadka Carabta iyo dagaal u dhaxeeya labada dhinac oo ka bilowday Ciraaq madaxweynaha Masar Cabdi Fattaax Asiisi oo hanjabaad u diray Turkiga amrayna in heegan la geliyo ciidamada dalka Masar iyo dawladda Yemen oo aydan culus u jeedisay Imaaraadka Carabta qodobadaas ayaad kaga bogan doontaan warka qaranka TV haatan waxaad ku soo dhawaataan isagoo faahfaahsan aan ku bilownay ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa godod ka sameeyay magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan inta u dhaxaysa taalada daljirka Dahsoon iyo xarunta wasaaradda amniga ee magaalada caasimadda ee Muqdisho ciidamadan gadoodsan ayaa xiray inta u dhaxaysa daljirka Dahsoon iyo wadada dhanka Xawataaka oo ah kontaroolka ugu horeeya ee laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya ciidankan ayaa ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan oo ah qaybta 27 qaar ka mid ah ciidamadan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in muddo sanad ah ay ku jireen difaacyada ciidamada iyaga oo wax qaadan isla markaana ay baarlamaanka ka maqleen in la bixiyay dhammaan mushaaraadka ciidamada si rasmi ah loo moga in ciidamadan ay ku jiraan ciidamadii hore u diiwaan gelisay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo ay dawladdu sheegtay in mushaarkooda ay si joogto ah u qaataan arintan ayaa ku soo aadaysa xilli madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhowr bar ku soo celceliyay in dawladdiisa ay ku guuleysatay bixinta mushaaraadka ciidamada dawladda Soomaaliya balse waxaa suuragal noqon karta in ciidamadan gadoodka sameeyay maanta ay yihiin ciidamo aan u diiwaan gelin dawladda federaalka Soomaaliya maadaama muddooyinkii dambe dawladda Soomaaliya ay waday tirkoob iyo diiwaan gelin ay ku sameynayso ciidamada dawladda markana xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa kulankoodii maanta ay yeesheen waxay ku ansixiyeen mooshin shal loo gudbiyay oo ku saabsan qoondada kuraasta haweenka xildhibaanada oo yeeshay kulankii shanaad ee kala fadhiga toddobaad ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan kulanka oo ay ka soo qayb galeen 143 xildhibaan ayaa wuxuu ajandihiisa ahaa dhamaystirka dood ku saabsan xeerka qoondada haweenka kadib markii shalay la horgeeyay mooshin ku saabsan arintan xildhibaanada golaha shacabka ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay mooshinkii shalay loo gudbiyay gudoonka golaha shacabka isla markaana ay ansixiyeen 134 xildhibaan 134 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ogolaaday in kuraasta haweenka aan lagu darin kuwa ragga oo loo gaar yeelo doorashada soo socota isla markaana kuraasta hadda ay haweenka ku fadhiyaan ay ku tartami karaan oo kaliya haween waxaana diiday 7 xildhibaan oo kaliya gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulanka shir gudoominayay ayaa sheegay in xeerkan oo ka mid ah xeerarkii ay gudbiyeen guddiga soo diyaarinta xeerarka doorashooyinku yahay mid ansax ah hase ahaatee waxaa durba soo baxaya daliil ku aadan xeerka ay maanta meel mariyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka waxaana la sheegay in xeerkan uusan anficin ama aysan qaadan karin odayaasha beelaha Soomaaliyeed oo iyaga soo xula cidda u noqonaysa xildhibaan ka hor inta aan tartanka la gelin waxaa dadka qaar ay qabaan in beel walba ay soo xulato xildhibaanada u tartamaya hase ahaatee xeerkan ayaa diidaya in kuraasta hadda ay ku fadhiyaan gabdhaha ay u tartamaan ragga markana madaxweynaha caafimaadkiisa inta badan la dhaliila Mr Donald Trump oo jeediyay khudbad dheer ayaa weerar afka ku qaaday xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha Congress-ka dalkaasi Mareykanka isagoona sidoo kale u gafay Soomaaliya Trump oo taageerayaashiisa kula hadlayay magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma ayaa sheegay in Ilhaan Cumar ay doonayso in Mareykanka ay ka dhigto dalka ay ka soo qaxday oo kale ee Soomaaliya sidoo kale wuxuu tilmaamay in Soomaaliya aysan ka jirin wax dawlad ah iyo kala dambeyn sida hadalku uu dhigay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J Trump ayaa xusay in Soomaaliya aysan lahayn ciidamo dhisan sida booliis iyo nabad sugid isagoo oo tilmaamay in kaliya uu ka jiro amar la'aan iyo jahwareer Ilhaan Cumar waxay doonaysaa in ay Mareykanka ka dhigto dalka ay ka timid ee Soomaaliya oo kale oo aysan ka jirin wax dawlad ah booliis kama jiro nabad kama jirto balse waxa kaliya ka jira amar la'aan iyo jahwareer waxayna noo tilmaamaysaa halka uu dalkeena u socon lahaa waxaana leenahay maya ayuu yiri madaxweyne Donald Trump
ugu dambeynna madaxweynaha caafimaadkiisa shakiga la geliyay ee Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu ku eedeeyay Ilhaan Cumar in ay u dagaalamayso inay galaangal xooggan ku yeelato dowladda John Biden oo ah musharax xisbiga dimuqraadiga ee xilka madaxtinimada kula tartami doona Donald Trump si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horeysay ee uu Trump ku dhawaaqo hadal xanaf leh oo ka dhan ah Soomaaliya isagoo ku weeraraya Ilhaan Cumar oo asalkeedu yahay Soomaali balse haatan ka tirsan Koongareeska dalka Mareykanka markana madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ka biyadiiday inuu ka qayb noqdo go'aan ay si wadajir ah u soo saari lahaayeen madaxda maamul goboleedyada oo la xiriira doorashooyinka dalka sida la ogaaday go'aanka ay soo saari lahaayeen maamul goboleedyada dalka ayaa ahaa in laga soo horjeesta 4 xeer oo uu soo gudbiyay guddiga wadajirka dhameystirka xeerka doorashooyinka ee Soomaaliya go'aanka ay soo saari lahaayeen madaxda maamul goboleedyada ayaa waxaa si gaar ah looga soo horjeesan rabay xeerka kuraasta baarlamaanka ee loo wareejiyay gobolada taasi oo maamul goboleedyada ay u arkaan awood ay leeyihiin oo ay dowladda la wareegayso madaxda maamul goboleedyada oo dhowr habeen ku wada hadlay qadka taleefanka ayaa waxaa xogta ay sheegaysaa in maamulka Galmudug uu ka soo horjeestay in uu qayb ka noqdo inkastoo aysan suuro gelin inaan helno go'aanada ay qaateen maamulada kale ee lagu tirinaya inay aad ugu dhow yihiin dowladda dhexe gaar ahaan Koonfur Galbeed madaxweynaha Galmudug Mudane Qoorqoor ayaa madaxda maamul goboleedyada u sheegay in maamulkiisu uu yahay mid cusub isla markaana hadda diyaar uusan u ahayn inuu faraha la galo khilaaf iyo xeer hor yaalla baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhawaan ayay ahayd markii maamulka Galmudug uu ka gaabsaday inuu ka hadlo baaqi ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ee ahaa in maamul goboleedyada ay isugu yimaadaan kulan degdeg ah si looga tashado waqtiga kala guurka ah ee uu dalka ku jiro hagaag markana waxaan eegaynaa dagaalka u dhaxeeya Imaaraadka Carabta iyo Turkiga howlgallada mataanaha ee Turkiga ku duqeynaya kooxaha argixisada Kurdiyiinta ee PKK ayaa toddobaadkan soo jiitay dareenka dadka in ay dhayay xaaladda Ciraaq waxayna u muuqataa in tilaabada Ankara ay ku soo aaday kadib markii Imaaraadka Carabta uu taageero dhaqaale siiyay kooxdan gooni-u-goosadka ah taasi oo muujinaysa cabsi ah in dagaal qarsoon uu Imaaraadka iyo Turkiga ku dhaxmarayo Ciraaq Turkiga wuxuu laba howlgal toddobaadkan ka bilaabay waqooyiga Ciraaq kuwaasi oo ka dhanaa maleeshiyaadka Kurdiyiinta ah howlgallada waxay sababeen in xukuumadda Baghdad ay si adag u diido ficilka military ee Ankara ee ka dhanka ah ururada PKK oo ku dhuumanaya gobolka Buuraleyda Ciraaq wasaaradda difaaca ee dowladda Turkiga ayaa ku faantay inay burburisay in ka badan 500 oo bartilmaameed oo PKK ah 36 saacadood gudahood wali ma kala saarin in maleeshiyaadka Kurdiyiinta ay beegsadeen ama kaydka rasaasta ama meel kale oo ay kooxdu haystaan telefishinka dowladda ee TRT ayaa wariyay in ciidamada Turkiga ay burburiyeen ugu yaraan 81 goobood oo ay ku dhuumaalaysan jireen PKK iyo meelo hubka loo soo marsiyo go'aankan uu Turkiga ku bilaabay howlgalka waxa uu yimid kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Imaaraadka Carabta uu raadinayo in uu taageero ololaha gooni-u-goosadka PKK ee dhanka Turkiga kaasi oo socday ku dhawaad 40 sano isla markaana galaaftay nolosha 40,000 oo qof laanta afka Carabiga ah ee wargeyska Al Arabiya Al-Jadiid ayaa warisay in ilo wareedyo ka tirsan dowladda gobolka Kurdiyiinta ee fadhigeedu yahay Erbil u sheegay in ay ogaadeen lacago badan oo Imaaraadka Carabtu siiyay PKK ilo wareedku waxa uu sheegayaa in dowladda gobolka Kurdiyiinta ay weydiisatay in cadeyn ogolaanshaha laga keeno mas'uuliyiinta lacagta ka soo diray Imaaraadka iyo akoonka bangiyada Sarlad Ali oo ka tirsan siyaasiyiinta Kurdishka ayaa sheegay in xiriirka lacagta ee ka dhaxeeya Kurdiyiinta mucaaradka ku ah Turkiga iyo Imaaraadka uu socdo muddo 4 sano ah kaasi oo soo mara ururada bulshada iyo howlgallada gargaarka ah ee dadka barakacay kuwa uu dagaalku saameeyay waxaa la dejiyay gobolada kala duwan ee Ciraaq ee Kurdistan gaar ahaan xuduudda u dhaxaysa Turkiga iyo Iran halkaasi oo dhaqdhaqaaqa Kurdiyiinta ay ka howlgalaan Imaaraadka iyo Turkiga waxay isku haystaan kuna muransan yihiin dhinacyo badan oo gobolka ah waxa ugu dambeysay Liibiya oo xukuumadda Ankara ay taageerayso dowladda caalamka aqoonsan yahay halka Abu Dubai ay malaayiin lacag ah ku taageeraysa General Khalifa Haftar oo dhawaan looga adkaaday Tripoli Imaaraadka waxa uu sidoo kale ka careysan yahay taageerada Turkiga uu siiyay Qatar oo uu u geeyay military si uu ugu difaaco isbahaysiga gacanka Carbeed ee hogaaminayaan Imaaraadka iyo Sacuudiga
sidaa darteed la yaab ma laha in imaaraadka raadiyo xasilooni darrada Turkiga isagoo taageeraya PKK. Si kastaba tallaabadaasi waxay khatar ku tahay in Abu Dhabi lagu calaamadiyo maalgelin argagixisada PKK oo Turkiga, Mareykanka iyo Midowga Yurub ay u aqoonsan yihiin urur argagixiso. Markana madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi ayaa ku amray ciidankiisa inay u diyaar garoobaan howlgalla dalka gudihiisa ama dibaddiisa si ay u difaacaan danihiisa amni xilli ay sii kordhayso xiisadda kala dhaxaysa Turkiga oo taageeraya dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya. Turkiga waxa uu taageersan yahay dowladda caalamka aqoonsan yahay ee degan Tripoli, waxayna taageerada Turkiga dib ugu celisay weerar 14 bilood uu magaalada caasimadda ah ku hayay Generaal Khalifa Haftar oo doonayay inuu qabsado. ciidamada Khalifa Haftar waxaa taageera Ruushka, Imaaraadka Carabta iyo Masar. Al-Sisi waxa uu u safray saldhigga ciidanka cirka ay ku leeyihiin meel 1200 oo kiiloomitir u jirta xuduudda galbeed ay wadaagaan Masar iyo Liibiya, halkaasi oo TV-ga dowladda uu muujiyay madaxweynaha oo daawanaya diyaarado dagaal oo duulaya. Isu diyaariya in aad qaadaan howlgal halkan xuduudeena ah ama haddii ay laga maarmaan noqoto xuduudeena banaankeeda, ayuu u sheegay duuliyaal ka tirsan ciidanka cirka iyo askar ka tirsan ciidanka gaarka ah ee Masar. Wuxuu yiri ciidanka Masar waxay ka mid ahaayeen ciidanka ugu xoogga badan gobolka. Waa ciidan macquul ah, ciidan wax ilaaliya ee aan wax u hajabin. waxaan rumaysanahay in mabda'eena aanan marnaba bedeli doonin, ayuu yiri Al-Sisi. Horaantii bishan Masar waxay ku baaqday in xabad joojin laga sameeyo Liibiya, taasi oo qayb ka ah hindise la soo jeediyo oo ku aadan in la doorto golo hogaamiye dalkaasi. Mareykanka, Ruushka iyo Imaaraadka Carabta ayaa soo dhaweeyay qorshaha Jarmalka. Wuxuu sheegay in wada hadallada ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay uu muhiim yahay hanaanka nabadda. Si kastaba Turkiga ayaa diiday soo jeedinta, wuxuuna ku tilmaamay isku day la doonaya in lagu badbaadiyo Khalifa Haftar oo khasaare xooggan uu ka soo gaaray goobaha dagaalka ee gudaha dalkaasi Liibiya. ugu dambeyntiina dowladda dalkaasi Yemen ayaa waxay eedayn culus u jeedisay Imaaraadka Carabta. xukuumaddan la aqoonsan yahay ee dalka Yemen ayaa ku eedeysay dhigeeda dalka Imaaraadka inay gacan siinayso kooxo hubeysan oo doonaya inay dal gooni ah ka dhigaan jasiirad badda cas ku dhex taala ee soqorta la yiraahdo. afhayeen u hadlay xafiiska madaxweynaha Yemen Cabdirabbi Mansuur Al-Haadi ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in kooxo hubeysan oo magacooda loo soo gaabiyo STC ay hadda isku dayayaan inay koox ku qabsadaan dhismooyinka jasiiradda Soqodra, waxaana afhayeenkan sheegay in kooxdan ay sameysteen calan gooni ah. wuxuuna afhayeenkan intaa ku daray in kooxahan ay taageero ka helayaan dowladda dalka Imaaraadka Carabta. maleeshiyadan hubeysan ayaa sabtigii bilaabay inay madaafiic ku garaacaan inta badan dhismooyinka dowladda, inta badan jasiiraduna gacantooda ayay gashay sida ay sheegeen wararkii ugu dambeeyay. dowladda Imaaraadka Carabta oo kamid ah dowladaha dalka Yemen kula dagaalamaya ururada kale ee Shiicada ah ayaan weli dhankooda ka hadlin eedan culus ee loo jeediyay ku aadan in ay doonayso inay kala qaybisa dalka Yemen isla markaana ay ka dhigto laba dal oo kala madax banaan, isla markaana jasiiradda Soqodra ay geyso maleeshiyaad iyada si toos ah uga amar qaata, isla markaana ay ka dhigto sida dal madax banaan oo kale. guud ahaan daawadayaal wixii aad kala socoteen Qarankaab TV waa naga intaa. sida ay nabadgelyo warar kale oo xiiso leh.